habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaaliya qodobada aan caawiydin hayana waxa kamid ah dagaal lagu hoobtay oo maanta ka dhacay gobolka Sanaag khasaaraha ka dhashay ayaan kula wadaagayaa iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland oo ballanqaad cajiib ah sameeyay sidoo kale waxaan arki doonaa Guule Saalax oo kamid ah siyaasiyiinta reer Puntland oo madaxweyne Dani ku eedeeyay inuu isagu Puntland dayacay qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale dheeraad ah ayaan daawada kula wadaagayaa balse marka hore wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalka leegi saarto gambaleelkana furto si kusoo gaaraanin warbixinada maalinlaha ayaan halkan kusoo gudbino hadii aan ku bilaabo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay dagaal qaraar oo lagu hoobtay kaas oo maanta ka dhacay qeybo kamid ah gobolka Sanaag una dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo deegaanka ah dagaalkan oo ahaa mid xoogan ayaa si gaar ah uga dhacay dooxada Dureera oo u dhaxaysa magaalooyinka Damal Xarage iyo Shimbiraale ee degmada Ceerigaabo waxayna labada beelood isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan inta la xaqiijiyay waxa dagaalkan ku dhintay ugu yaraan 22 ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan oo isugu jira dhinacyada dagaalamayay iyo dad shacab ah oo aan waxba galabsan wararka ayaa intaas ku daraya in labada beelood ee dagaalamay uu ka dhaxeeyay khilaaf salka ku hayay dhul daaqsimeedkaas ugu dambeyntii sababay gacan ka hadal xaaladda ayaa wali kacsan waxaana haatan socda dadaalo nabadeed oo degdeg ah oo lagu hortagayo dagaalka qaraar ee saaka ka qarxay gobolka Sanaag sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Sanaag ayaa gaaray deegaanka lagu dagaalamay iyaga oo ku guuleystay in ay kala qaadaanin maleeshiyaadka labada dhinac si loo qaboojiyo xiisada ka soo cusboonaatay halkaasi dhanka kale Guule Saalax oo kamid ah siyaasiyiinta reer Puntland ayaa madaxweyne Dani ku eedeeyay in uu isagu Puntland dayacay qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray ayaa uu ku yiri waxaan soo dhaweynaynaa in madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani qirtay dayici amni ee aadka u weynaa muddadii uu xilka hayay mas'uuliyad la dayaco tii ugu weyneed ayay ahayd in cadow shisheeye u badan saldhigto Puntland uuna ku diyaarsado hub gantaalo ay kamid yihiin si shacabka ay Puntland ugu gumaadaanin alla ayaa naga qabtay ka sakow geesiyaasha ciidamada difaaca Puntland inkastoo aad dayacaas qiratay dadkana aad weydiisatay cafis ayuu yiri Guule Saalax Barre oo qoraal Facebook-giisa ku soo qoray sidoo kale waxa uu yiri dayacaas weyn waxa keenay oo ugu weynaa waa colaadii gudaha ee ka dhacday Boosaaso iyo Garowe ee xunkuboobka aad ku rabtay iyo damci xamar ee aad waqtiga maskaxda xoolaha iyo xildhibaanada gelisay hal subaxna aad cilo uga soo dhaqaaqday waxna aan la iska weydiin sidoo kale waxa uu yiri damci dayacaas keenay wali waa ka muuqdaa meel iska dhig oo mudnaanta Puntland si muddo xileedka ku haray yeysan ka noqon muddo xileed kale oo aad Puntland dayacdo ayuu yiri Guule Saalax oo fariintan u diray madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani sidoo kale reer Puntland fariin uu u diray ayuu ku yiri reer Puntland aan baraarugno dhaqan gelinana isla xisaabtanka dayac noocan oo kala ah iyo adeeg xumo deegaanka ka jirta mana dhacdeen buu yiri hadii cidda mas'uuliyadda haysa aan la xisaabtami lahayn dadka reer Puntland waxa laga rabaa ayuu yiri in ay bartaanin inay la xisaabtamaan qofka mas'uulka u ah oo xilka u haya ayuu yiri Guule Saalax Barre oo ah siyaasi reer Puntland fariin uu soo diray madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani dhanka kale madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan la qaatay nabadoonnada iyo cuqaasha gobolka Bari kulankan oo ka dhacay qaybta shirka ee xarunta gobolka Bari waxa looga hadlay howlgalka ciribtirka argagixisada ee Puntland oo ka socda Burac Almiskaad kaasi oo galay wajigii saddexaad madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay bulshada gobolka Bari iyo guud ahaan Puntland garab istaaga ay u muujiyeen ciidankooda waxa uu ku baaqay in laga wada shaqeeyo sidii dadkii argagixisadu soo barakicisay dib loogu celiyo deegaanadii ay ciidamada difaaca Puntland ka xoreeyeen kuwaas oo ah Burac Almiskaad ee gobolka Bari ee Puntland sidoo kale Siciid Dani ayaa ka hadlay dagaalka ka socda deegaanka Hirshabeelle kaas oo lagu dagaalamayo maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaan u rajaynayaa dowlad goboleedka Hirshabeelle inay ka guuleystaan cadawga ku soo duulay iyaga iyo shacabkooda iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayuu yiri madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani daawada intaas ayaan ku soo gabagabeynaa warkeena caawa haddii aad halkan nala soo gaartay waxaan ka codsanayaa mar kale in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalka leegi saarto gambaleelkana furto si ay ku soo gaaraanin warbixinada maalinlaha ayaan halkan ku soo gudbino